Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta xarigga ka jiray xerada ciidanka 12-aad ee laga hirgeliyay magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka Galmudug. Xeradan oo ku taala duleedka magaalada Cadaado ayaa waxaa lagu dhisay barnaamijka isxilqaan oo ay kaashadeen saraakiisha iyo shacabka iyo maamulka degmada Cadaado. xarig jarka kadib waxaa warbaahinta la hadlay madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo munaasabada uu ku wehlinayay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre. dhankiisa waxaasna hadalka qaatay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre waxa uu shacabka iyo maamulka degmada Cadaado ku amaanay sida ay u dhaqan galiyaan barnaamijka isxilqaan oo muhiimad gaar ah u leh dawladda Federaalka Soomaaliya. xoog ay geliyeen dhalinyarada Soomaaliyeed intay sabaabuleen inay ciidanka 12-aad xero uga dhisaan halkan waxa lagu macnayn karaa kaliya dalka Soomaaliyeed rajada u leeyahay مشروع اسحلقان oo dawladda federaalka ay ku dhawaaqday oo xamar ka socda oo tiyaatarkii iyo maktabadii iyo madaxda qaranka iyo taalooyinkii taariikhdeena ahaa iyo meelo kale dib loogu soo nooleynayo waxa uu marayaa meel weyn laakiin in magaalada Cadaado dhismayaal intaas baaxad leh lagu dhisaayo isxilqaan waa ka mahad celinayna shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan haddii reer Cadaado ay 12-aad uga dhiseen halkan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay wadaan xerooyin kale iyo dhismayaal kale waxaan leenahay gobol walba iyo degmo walba oo dalka ka mid ah waxaan ugu waajibtay inaan dalkeena dib u dhisano ku dhisano isxilqaan ku daysano magaalada Cadaado oo runtii muujisay si kastaba xeradan ciidan ee maanta oo xarigga ka jiray Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ee laga dhisay duleedka magaalada Cadaado ayaa waxaa lagu dhisay barnaamijka isxilqaan waxaana si gaar ah u degaya ciidanka xoogga dalka qaybta 12-aad ee deegaanada maamulka Galmudug. Cumar Axmed Ibraahim, Telefishinka Sub News, Cadaado.